عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشة مدن قدريتها حشمة كرامة عيسى شرفت نجاب ودن جودها نجد داوانية دافع الدنيا دي يصدق كله ودمده سومالي دكتور كسر دوادة برامج يعني كناس ضباط كانوا وحنا كسر قادم دون الدور كعرويك كليين كناس السومالي لا ما أنت بقولنا عروضة الناشنال وكم ده عرويك كجري جيجا سومالي كود وعنصن islamarkaasna waxa barnaamij bartiin ugu ah maamulaha guud ee carwada national Mahdi Maxamed Cumar ugu horeyn Mahdi ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ala aqabtil matiin wala ala udana ala baalimiin waan ku dhawahay walaal waan ku dhawahay aad baan ugu mahadsantihiin sida noo soo boqoteen aad baan ugu horeyn Mahdi waxaad faahfaahin dheeraad ah ka bixisaa goortii la aasaasay carwadan iyo waxyaabihii ku dhaliyay inaad carwadan aasaastaa bismillaahir rahmaanir rahiim carwada waxa la aasaasay 5tii bishii koobaad 2014 waxa waxyaabaha lagu dhaliyo waxa kamid ahaa markii aanu eegneen assessment ku sameynay in wadanku u baahan yahay carwooyin waaweyn oo noocan oo kala ah isla markaana ay sii badanayaan population-ka Hargeysa ku nool iyo baahidooda ay sii badanayso haadirteed baan u kaliftay inaan carwada sameyno carwada fiirkayga waxa iskala laba dumar oo aan halkan aad ka salaamayo oo ugaas Axmed Cilmi iyo Safiya Maxamed Cabdi ayaa aasaasay waxaan la aasaasay 5 bishii koobaad 2014 muddadan ilaa inta laga furan tahay alxamdulillah rabbil caalamiin oo balaaran tahay sadaka sanad oo balaaran tahay waxa marba marka ka dambaysa ay korsi qaadmaysa horosi marmaysa waxyaabo ku cusub oo mawru oolin ama maxaan ku dhahdaayay aan hore magaalada oolin ayaan keenaa way si guud waxaad u sharaxdaa qalabka kala duwan ee bulshada u keentaa horta waa si wanaagsan oo aragtaanba indhihiina macalina ku tanimka fadhinaa waa cuntooyinka xunto la yiraahdo oo kuna ugu quruxda badan ugu qaalisan uguna dambeeyay sidii kala aragtaan waxa weeye meesha fadhiya yaala waxa yaala cuntooyin baa yaala waxa yaala gooliyo casri oo Turkiya yaala sharaxaadiyo ka daran Turkiya taala qaar tabanisa yaala waxa yaala qaar tabanisa yaala gooliyo baa yaala hurdooyinkii baa yaala dhammaan wixii guri looga baahnaa oo dhameystiran ayaa carwada national furniture laga helayaa waxaad sharaxday agabka kala duwan ee bulshada u keentaa tirada guud ee shaqaale ka hawsha carwada websa carwadan imika sida maadaama inta la furan tahay carwada waxa ka shaqeysa 6 shaqaale ka shaqeeya marka laga reebo waxa externalka ama security dibadda carwada gudaheega waxa ka shaqeeya 6 shaqaale ayaa ka shaqeeya oo maamulahay noriskiina ay gaar ka yihiin joogaan way carwada ganacsiga national ee ku suganahay maxay kaga duwan tahay carwooyinka ka jira dalka Soomaaliland waa su'aal aad u wanaagsan walaalkay haddii aan isku dayo jawaabtaas su'aasha jawaabteeda waxay kaga duwan tahay horta markaad wax furayso waxa loo eegaa baahida suuqa taala way furan way jiraan carwooyin badan oo magaalada ka jira way jiraan oo aad u waaweyn oo aad u caaniya diis markaas waxaanu eegnay maxaad kaga duwi kartaan maxaad si aad maxaan ku leeyahay customer soo jiidan kartaan waxyaabaha aanu keenno waxyaabo waxa kamid ah oo ay kaga duwan tahay waa gugulaha Turkiga waa cuntooyinka Turkiga waxyaabaha Turkiga sababtoo ah alaabta taala Hargeysa waa Chinese inta badan sababtoo ah waxyaabo qaaliya weeyeen alaabta Turkiga qaaliga darteed ayaan u soo qaadnay saan ugu hurno maxaan ku raahday alaabteeda aan ugu hurno inay kaga duwanaato suuqa Hargeysa ay kaga duwanaato ayaan alaabta Turkiga u soo qaadnay qaaliga waxyaabahan ku faani karnaa ayaan kaga duwanaa carwooyinkana waxaan oran karnaa waa alaabta Turkiga qaaliga iyo sharaxaad badan oo jira oo magaalada wali aan iman magaalada way waxaad sheegtay inaad 6 shaqaale ka hawlgalaan carwada kulli carwada waa carwo weyn arkayo shaqaale badan way baahan kartaa si wanaagsan shaqaalaha qaadataan maxaad ku xulataan walahi waa su'aal aad u wanaagsan oo loo baahnaa inaad weydiiso shaqaalaha waxaan ku qaadanaa horta marka ugu horeysa waan soo xaysiinta kadib waayo maanaga waxaan naafici karo qofka aqoon u leh waxaan u eegnaa markaasi experience-kooda aqoontooda hadda halkii taagan tahay dito markaan soo xaysiinaa intii shaqaale timaadaan eegnaa waxaan interview baan ka qaadnaa taxan kama qaadno laakiin interview baan ka qaadnaa habka customer-ka soo dhaweyn karaan eegnaa sidoo wax u iibin karaan eegnaa firfircoonida inta xaddiga firfircoonida ku jirtaan eegnaa markaan anaga iyo owners-kan super bardhigno aan dadka interview ka qaadnay dib u eegno wixii halkaan nooga soo baxa ayaan ku dhaqaaqnaa oo si cadaaliya anyway waxaa dalka ka jira carwooyin fara badan oo soo badanaya imika muddooyinka u dambeeyay balse waxaa jira qurba joog badan oo kaalintii qaranka Soomaaliland ay kaga jireen gabay isla markaasna aad ka mid tahay qurba jooga carwadan maalgashaday kama hadiyahan ama ka carwo national maxaad ugu baaqaysaa dadka aan wali maalgashan Soomaaliland horta walaal su'aalaad wanaagsan su'aashaas waa su'aal muhiim ah aan aad wahalay ay markii hore ma ka boodayba inaan ahay inaan raahdo waxa carwadan iskale qurba joog inaan raahdo
waayo qurbajoogtu waa ta keliya tee ugu muhiimsanay dalka wax ka qaban karta ee dhaqaalena ku soo kordhin karta waxa horta ku baraarujinaa dadka aan baraarugsanayn ee dadka qurbiisa ku sugan ama haba soo noqdaan ama ha magnaadaan war dalkan waa dalkiinii hooyo waa dal wax ka qabsan kartaan waa dal dhaqaalihiisu xoogan yahay wixii afka laga yiraahdo waa halkiisa laakiin markaan eegnay waa dalku dal dhaqaale la weeyaan wax soo saarna leh aad ka faa'iideysan kartaan marka carwadan lafteeda wax laga aasaasay waa qurbaha marka waxaan u leeyahay intiina ku haweyna waa ku fiicantiin oo ku saxsantiin hawshiina wada intiina aan war haynin ee qurbaha kaga maqan war wadankiin dib ku soo laabta hawlahan oo kala aad uga baahan iyo fursado kale oo shaqo ayaa jira taas aad kaga faa'iideysan kartaan oo soo laabtan way waxa dalka Soomaaliya ka jira sixir barar baasan oo kolba soo noqnoqda dhibaato weyn oo sixir barar ka soo celin karta maxaan hor karnaa su'aasha aad u wanaagsan tahay inkastoo dadka loo baahna dadkii dhaqaalaha toos ka barteen su'aasha la weydiiyay haddana waxaan isku dii karaa kulli intii maxaan ku raadaan ka jawaabi karo waxaan isleeyahay horta laba mid baan u qaadi karaa waxa weeye horta dadkeenu isticmaala lacagaha qalaad oo lacagtoodii danaynin lacagaha qalaad markaan leeyahay macnaha dollarkiiba amka aad badan dadkiiba dollar isticmaalaya baskiiba dollar lagu bixinaya wax kasta wax lagu bixinaya dollar sababtaas oo keentay in sixir barar dhaco maxaa yeelay markii lacagtii kaashkii ee Soomaaliland lahayd aan la isticmaalin wax meeshii sixir barar bay imanaya ta kale isleeyahay way keentay sixir bararka waxa weeye central bank oo si efficiency aan u qabsan shaqadiisa maxaa yeelay central bank wuxuu ku shaqeeyaa monetary policy macnaheedu waxa weeye marka uu dollarku suuqa ku bato wuxuu soo daayaa xaddi dollara markuu ku yaraadana markuu dollarku suuqa ku yaraadana wuxuu soo daayaa dollar markuu ku batana dollarku xireeya marka ama kaashkii uu xireeya kaashka markuu batana kaashku xireeya markuu kaashku yaraadana uu soo daayaa sidaa darteed central bank ma qabsado hawshiisii hawlahaasi waxa la wareegay sariflayaalna si loogu tagalo ma maamuli karaan taas ayaa keentay sixir bararka marka way أنا وصلنا قناة عروضنا نشنا وما حيثيس يهمي الذي عروضنا. خلاص كوب الشاقي وحرب كوب الشاقي عروضنا واحد جد أنت عروضك لا على ضوء قاليا وكامي هي سجى وحوي ما دام ضدكنا لك على أو رأي جو تسع سنتين ليري وحوي أنا ميل تاجنا إنه مرحبا بقرب بدني هي أنت هوا حنوضنا فكر رأي يوم حنقول هذاي إن أنا وحرصي تلابسنا أو نبراتي وين وكلا أكفرنا مجالوين كلا كفرنا مركا وأنا نصيح وشنو سيرفيس كأما تكانوا قبنا نشعر كنا وجبرتنا نكرسي قامو أنتين سكرسي قامو بريس كنا عم آد وكانترولو أيام شعلها هي أنا عروين وين وكلا فرنا يقنع سجمالها كلا ببنان واحد شراء شقوين بنان بشراء أو عروضنا ناهين وضوء تكاد وبنان بشراء كل فتوى حدودنا أنا نوحيان كقبنا كرك قبنا أن تارجت كيجو أنا بلارينو أنا عروكها تكبلارينو أنا سومالند أنا وحكسو كورينا فعله. وين سنوقدي واحد رجعت السماء بدك واحد كون شغال الآن استمر كان باهيد وبوين قبل واش شغالان ما جرت اللي يرى إن عروضا الشغال استمر كان هيك في باهيد شغالان وأصلا هاي أطوارها ودك شغالان بكتير تقول بقى بحسن أنا نحن نكره هرتا اللي يرتي هذا أسبوع هيصير شغالان ويقف وحكاسته وبعضه وهلي كرا وكابيتال كأنه كابيتال عقوين كبلاو معها وحيابر هوسو كبلاو كرا مش قمر هوسو كبلاو كرا يعني إحنا نمسينا هرتا كو دكينيا يشعل شغلانتنا وايو شقاء حفيظ ما شقاء هول وين بوق أرضك مقصود شام عندك صباحه أيو كبلاو يا ويشرتها شقاء أدنى صون نقدر ناشنال فرنيتشر ويشرتها شقاء وركاس ويشرا دوام وحن قاعدين لبا شقالا markaan eegnay ama eegnay shaqalaanta ka jirta sida loo canaanayo carwooyinkii ama dawladda ama loogu canaanayo shaqa abuurka kama qayb qaataan salary laba shaqalaan qaadanay imikana waxaan ku tala jirnaa inaanu laba kala qaadano haddii ilaahay yiraahdo si aan uga qayb qaadano yareynta shaqa la'aanta dhalinyarta way sidoo kale su'aalta hoos maraysa jeclayna ku weydiiyo dhalinyarta Soomaaliland ee dalka wax ku baratay doonaysa inay dalkooda horumariyaan doonaysa inay furato business ama sidoo kale ganacsiga xor u leeyahay dhiirigelinaya buu soo jeedin waxaan ku dhiirigelin lahaa horta waxaad samaysaan kow waxaan waad ku fikirtaan inaad wax abuurto haddii adiga kaa soo go'do inaad hal abuur noqoto ood wax abuurto ilaa idankiina $1 aan dahaynine ood go'aanka leedahay waad samayn kartaa waxaad ku adkaysataan inaad qaadataan go'aana inaad wax wadanka ku soo kordhistaan oo abuurtaan وأنا مسنا مركا إن لصمين كرر ليرت شقة أبو كا أما محن كره ضايع أي ودن كوسو كردين كرتو أو عروين كون كوين صمين كرتو ولا أودا حدي لسكوت تجو أو أنت صو محن كره ضايع ودن كون كشير ويا لسكوت ضعفي ويوم من كليدي وحسل مترو وحول بور شير نوي أنت صو أرضي أما أنت صو ليرة وشير سمستي أو فكرة عصوبة هرجيسة لتمادا
waxaan anu aaminsanahay inay kaga caalamaalayso marka waxaan aaminsanahay dhalinyartaasay wadankiina ku hirtaa waanad ka samayn kartaan waanad ka malin kartaa ma leeyahay way gabagabadii barnaamijkeena ayaynu soo gaadhay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambaysa ama fursadda ugu dambaysa ku siiyo ma jirta ciyaad baaq u daraysa amba sidoo kale hadday tahay customerka amba cid kaloo gaaro aad fariin u daraysa aad baad uga mahadsan tahay horta aad baad uga mahadsantahay barnaamijkan anoo kaga faa'iidaysanay markaa barnaamijkan waxaan leeyahay customerkayga iyo khaaska iyo inta aan weli aanan saragba waxaan leeyahay carwada nationalta ku soo dhawaada alaab casriye idin keentay alaab qaaliye idin keentay oo tayale oo wanaagsan barayskayguna uu aad u hooseeyo marka waxaan leeyahay intii customer ah awalba waa iska joog tahay waan isla xiriirnaa waan isnaqaanaa soo dhawaadan leeyahay oo soo dhawaada inta aan magaalada ama ka baxsan ama wadanka gudihiisa ku jirtay Hargeysa ka baxsan waxaan leeyahay carwada national waxa uu kaaleedaan barays jaban alaab tayale uu kaaleeyaan leeyahay waa fariinta aan dirayo anu barnaamijka ka faa'iideysanay way aad iyo aad mahadsantahay gabagabadii barnaamijkeena ayaynu soo gaarnay waxaan si weyn ugu mahadcelinaynaa carwada national furniture oo kamid ah carwooyinka ugu caansan ka jira geega Somaliland sidii barnaamijkeena martida noogu ahaa maamulaha guud ee carwada national furniture Mahdi Maxamed Cumar aad baan kaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga aad baan kaga mahadcelinaa sidoo kale waxaan siina mahadnaq gaar ah haya cameraman-ka isku hawlay injineer Cawl Cumar Caabi Cawkiiko barnaamijka waxaan la socodsiinayaa anigoo Baxnaan Cabdi Baxnaan Ducaysana inta barnaamij lamida ku kulmi doono ilaa tusan iyo toobada Allah meel ka soo